فلسطيني وحان جوبني هو عبد الرحمن عبد الشكور أنيقيو عبد الرحمن عبد الشكور iyo dhowr qofood oo kale oo dhalinyaro oo reer Muqdisho ah meeshaas wada joognay waxaan fadhinay meel qol fadhi ah adigu abaara 5 daqiiqo ka hor ayaan guriga galay oo meesha u soo galay baridinayna oo is salaamayna ayaa waxaan banaanka ka maqalnay guriga buuq wax daqiiqada ka yar qaatay kadibna waxaa bilaabatay risaas xoog leh risaastaas xoog leh adigu ku dhawaad قدر إلى 30 إلى 40 دقيقة أي هوية كوجرني كان حسقتي وقرن كرتا ميل رصاص كبل لابط قفك جدار كودو أيو ماركتين إسناف سجيدا وقبرني تيس رصاصتي الإسناف سناي هل ميل نواود التاجنين أو قلق فدقة جدار عن بلب أيان ربني عن قلنا كور أيا ماركتي كل ويفتري جارتي عبد الرحمن شكور gacanta bidixda inay ahayd ayaan maaragtay ayaan boqol maaragtay u malaynayaa meel xusulka iyo gacanta u dhaxaysa ayaa dhaawac ka gaaray wiil dhalinyaro ah oo aan meesha wada taagnayn iyo aniga ayaa gacanta ka xirnay shaatigiisa uga xirnay waxaa bilowday dhawaaq cod ah oo ciidanka ah oo ay leeyihiin ciddii gudaha ku jirto oo hubaysnayn maaragtay soo baxdo لابو ويلو دالنيرا يعني iyo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa meesha soo wada degnay ganjeelka hore markii aan nimid ciidamadii meesha joogay dadkii maaragtay baaritaan ayaa loogu dhaqaaqay maya anagu kulay dareenaan leenahay indhaan leenahay dhagaan leenahay ciidanku inay ciidanku dawladda yihiin iyo gaadiidkii maaragtay ciidanka nabadgelyada oo dawladda iyo dharkoodii ayaa meesha maaragtay yaalo oo hadda waxa anagu aan garan weynay iyo cid kale oo soo duushay ma ay jirin